السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta casharkeeni lixaad waxaan ku qaadanaynaa weydiimahaas oo noqon doona casharadii hore oo aan soo dhaafnay si aan u ogaano inaan casharadii aan soo dhaafnay si fiican aad ula socoteen iyo in kale. sidoo kaleente su'aalaha marka aad ka jawaabaysid waxaad isku daydaa inaan cashirkii hore aan usoo baranay aadan dib u fiirin si aad u ogaatid cashirkii hore inaad soo baratay iyo in kale. iskuna day inaad buug iyo qalin soo qaadatid, qortid, kadibna aad ka jawaabtid si micnaha aad u fahamtid waxa aad soo baratay iyo wixii aadan soo baran. cashiradii aan soo dhaafnay xifdintoodii waxay muhiim u tahay cashirada soo socda inaad la qabsan doontiin. teeda kale haddii aad tahay waalid u baahan in ubadkiisii af Soomaaliga uu baro, waad isticmaali kartaa fiidiyoyadan adiga oo u baraya qaabka aan u soo gudbinayno ubadkaaga farta Soomaaliga ah. ubadkaaga waxaad u soo qaadaysaa buugaagta wax lagu barto, kadibna qaabka aan u soo gudbinayno fiidiyoga ayaad ugu qoraysaa xarfaha sida shibanaha, shaqalka. waxaad u shidi kartaa fiidiyoga si fiican aad u bari kartaa. su'aalaha aan soo gelinana inaad u qortid ayaad dhihi kartaa ka shaqeey si micnaha ubadkaaga aad ugu dadaashid in uu barto afkiisa hooyo, qaabka loo qoro iyo sida loo akhriyo, taasoo marka ka saacidaysa ubadkaaga inay wax badan ka faa'iidaan. ujeedka aan usoo gelinayno fiidiyogana muhiimadiisa ayaaba waxay tahay in ubadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan qaybahooda kala duwan, hadday ahaan lahaayeen kuwa joogay dalka iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa joogay dibadda. maadaama maanta aqoontii ay isku bedelayso qaab e-learning ah ama electronic learning, waxay noqonaysaa ubadkeenana Soomaaliyeedna inay helaan casharo af Soomaali ah oo ay u baran karaan qaab online ah. haddii adigu laftaadii oo fiidiyoga aad daawanaysidna aad tahay qof u baahan barashada afka Soomaaliga ah, isku day inaad buug soo qaadatid, qayb walba aan soo gelino aad ka faa'iideysatid oo aad ka qoratid. ka faa'iideyso, ugu faa'iiday ubadkaaga iyo qoyskaaga iyo saaxiibadaadaba. fiidiyogane channelkan Osman Banjar subscribe dheh, gambaleelkana furo si cashir walba aan soo gelino oo idin soo gaaro qaab free ah. waxaana bilaabi doonaa insha Allah luqadda Englishka haddii af Soomaaliga aan in xoogaa ah aan wadno insha Allah. channelkan waxaan ugu talagalnay inaan ugu faa'iideyno bulshadeena hadday ahaan lahayd waxbarashada sida af Soomaaliga, Englishka iyo hadday ahaan lahayd taariikhooyinka. waxaan isku dayi doonaa in maadooyin kaleentana aan ku soo gudbino. hamiga ama aan ka leenahay waa hami aad u fog. marka haddana waxaan gudagali doonaa weydiimaheeni 5tii cashar ee la soo dhaafay. weydiimahaas kadib waxaa inoo bilaaban doona cashirkeeni 7aad oo aan ku qaadan doono qeybaha dambe af Soomaaliga. casharkeena lixaad, xifdinta casharadii hore waxay kugu dhiirigelinayaan inaad la qabsato casharada xiga. isku day inaad ka jawaabtid weydiimaha adigoo casharada hore aadan ka fiirsan, ama marka hore ku dadaal inaad xifdisid casharadii hore kadibna ka jawaab su'aalaha soo socda. weydiimo xaraf kastoo weyn ku hor qor xarafkiisa yar ee shibanaha ah meesha bannaan ee ku xigta. meeshan waxaa inoogu qoran xarfaha waaweyn ee shibanaha. xaraf kastoo weyn ku hor qor xarafkiisa yar, sida ba ku hor qor ba yar, ta ku hor qor ta yar ilaa laga gaaro ya. ya-daasna waxaad ku hor qoraysaa ya-da yar. weli waxaan ku guda jirnaa weydiimaheeni. waxaad soo guda galaysaa qaybtan kale oo ah
ku buuxi meelaha bannaan xarfaha yaryar ee shibanaha. oo xarfaha shibanahana waxaa ka maqan xarfo qaar. tusaale ahaan meesha waxaa inoo yaala ta, xa, da, ra, sa, ca, fa, ka, la, na, ha, ya. waxaa ka maqan xarfo. ku buuxi xarfaha ka maqan meelaha ay ka maqan yihiin. sida ta'da oo kale horteeda waxaa ka maqan ba. isku day inaad meeshaas ba ku buuxisid. ta'da kadib iyo xaraf kastoo bannaan iyo meel kastoo xaraf uu ka bannaan yahana isku day inaad ku buuxisid xarfaha yaryar ee aad horey usoo baratay oo meesha ka maqan. weydiimihii ayaan weli ku guda jirnaa. qaybtaana waxaan u baahannahay inaan fahamno xaraf kastoo weyn ku hor qor xarafkiisa yar ee shaqalka ah meesha bannaan ee ku xigta. waxaad u jeedaan meeshan 5 xaraf ee shaqalka farta waaweyn ayaa inoogu qoran. marka waxaan u baahannahay xaraf kastoo weyn xarafkiisa yar ee shaqalka ah aan hore usoo baranay inaan ku qorno. tusaale ahaan a ayaa meesha noogu horeyso. a waa inaad ku qortaa meesha ku xigtay bannaan. a oo xaraf yar ah oo aad horey usoo baratay. weydiimihii ayaan weli ku guda jirnaa. qaybtaanna waxaa loo baahan yahay ku buuxi meelaha bannaan xarfaha yaryar ee shaqalada ah. waxaa meesha inoo yaala 2 xaraf oo far yaryar ah. shaqaladina waxay ahaayeen 5 xarfood. marka 2 xaraf meesha inoo yaala waxaan rabnaa 3 xaraf oo kale ka maqan meelaha bannaan oo hoos ka calaamaysan inaad ku buuxisid xarfaha ka maqan ayaga oo far yaryar ah. okay, qaybta ugu dambeysa ayaan soo galnay oo weydiimaha ah. xarfaha soo socda ku hor qor dhawaaq dheer ama shaqalo dheer oo xarfo yaryar ah. xarfahan xaraf kastoo meesha yaala waxaa loo baahan yahay inaad ku hor qortid dhawaaq dheer ama shaqalo dheer xaraf kastoo hortiisa. tusaale ahaan a ku hor qor a oo xaraf dheer ah. xarfahaasoo noqonayo kuwo yaryar ah. casharkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waa casharkeenii 6. casharada xiga waxay inoo noqon doonaan hadduu ilaahay yiraahdo isku xirka xarfaha shibanaha ah iyo xarfaha shaqalka ah si ay u noqdaan mustaqbalka dambe aan ugu barano qaab aan ugu dhigayno jumlad ahaan. laakiin marka hore waxaan gudagali doonaa isku xirka xarfaha shibanaha ah iyo xarfaha shaqalka ah sida la iskugu xiri lahaa cashiradeena xiga insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.